in uu yahay weeraryahan ka ciyaari kara dhankii la doonaba, inuu noqday mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu qatarsan horyaalka Ingiriiska, in uu yahay xeelad socoto oo macalinka goolalinta ah, in mar uu noqday xidig ugu goolalinta badan kooxda Southampton, in hadda uu dhexaad u yahay kooxda Liverpool, in iskuulku uu ka tagay daadiisa markay ahayd 15 jir, in kubadda uu ku ciyaari jiray jidadka magaaladii uu ku dhashay. Warbixintan soo socoto waxaan ku eegi doonaa taariikh kooban oo ku saabsan xidiga xulka qaranka Senegal iyo kooxda Liverpool, Sadio Mane. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe dheh oo gambalelka furo si aad u hesho warbixin kasta oo halkaan soo gelino. Waad ku mahadsan tahay soo baqashada bartayda. Sadio Mane waa ciyaaryahan heer caalami ah oo ka soo jeeda dalka Senegal. Mane waxa uu horyaalka Ingiriisku ku soo bandhigay waxyaabo la yaab leh oo cajab geliyay inta daawata ciyaaraha kubadda cagta. Sadio Mane waxa uu leeyahay awood uu kaga ciyaari karo dhankii la doonaba, weerarka, qaybta dhexe ama afka hore. waxa uu noqday mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu qatarsan horyaalka Ingiriiska, halka dhanka kalena uu noqday mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu wanaagsan qaarada Afrika. Level au suspense s'il vous plaît. African Player of the Year 2019 Sadio Mane. waa nin isaga oo dhanba ah xeelad socota, kaasoo haddana ah macalinka goolalinta. wuxuu awood u leeyahay inuu baas xeeladaysan uu tuuro una abuuro fursado ciyaaryahanada ay isku kooxda yihiin. Media Toure oo ah aasaasaha xarunta ciyaaraha ee Academiga Generation Foot, halkaas oo ah goobtii uu ka soo bilaabay Mane aqoontiisa kubadda cagta, ayaa ku qanacsan in 24 sano jirkan uu hore u soo qaatay waxbarasho dhameystiran. Sadio Mane ayaa mar noqday ciyaaryahanka ugu goolalinta badan kooxda Southampton, isagoo dhaliyay 15 gool, kadibna waxa uu ugu biiray kooxda Liverpool aduun lacageed gaaraya 34 milyan. wareegistiisa garoonka Anfield ayaa ka dhigtay inuu noqdo ciyaaryahankii ugu qaalisanaa abid inta la og yahay taariikhda, ayadoo lacagta lagu kala wareejiyay ay sii saramartay 28 milyan ee kooxda Man City siisay kooxda Swan City si ay u qaadato weeraryahanka u dhashay Ivory Coast Wilfred Bony bishii January sanadkii 2015. Mane ayaa lahaa 6 gool, halka 4 uu gacan ka geystay kulamo 11 gaarayo uu kooxda Liverpool u saftay xilli ciyaareedkii ugu horeeyay ee uu ku biiray. waxa uu ahaa in muddo ahba mid udub dhaxaad u ah kooxda Liverpool. xil ciyaareedyadiisii ugu horeeyay ee uu matalo Liverpool waxa uu ka hortagay Arsenal furitaankii xil ciyaareedkii waqtigaasi, ciyaartaas oo Liverpool ay ku adkaatay 4-3. Mane ayaa ku sameeyay markan aad u weyn ciyaartii xigtay, isagoo gacan ka geystay goolasha ay Liverpool kaga badisay kooxda Burton Albion oo gaarayay 5 gool eber ciyaar ka tirsaneed koobka EFL Cup-ka. waxaa xigtay inuu dhaliyay 1 gool, mid kalena uu abuuray fursadii lagu dhalin lahaa iyadoo ay kooxda kaga adkaatay 4 gool iyo hal horyaalka Ingiriiska. kooxda Leicester waxay ku dhalisay arintani taageerayaasha Anfield farxad xad dhaaf ah. fagaarayaasha caalamka, Mane ayaa u noqday calaamada qaranka Senegal, halka furitaanka isreebreebka ku soo bixida koobka qaramada qaaradda Afrika ee 2018 dhacay uu muujiyay inuu yahay nin udub dhaxaad u ah Senegal. 36 jeer ayuu dalkiisii guul u soo hooyay. Mane waxa uu qarankiisa u dhaliyay wax ka badan 10 gool, halka 11 uu gacan ka geystay dhalintooda. wacdaraha ciyaareed ee uu ku soo bandhigay Mane naadiga u ciyaaray kooxdiisa qaranka ayaa ka dhigtay ciyaaryahan xirfadiisa ay aad u sareyso. Mane da'diisu markay ahayd 15 jir waxa uu ka tagay iskuulka, wuxuuna go'aansaday inuu noqdo ciyaaryahan caalami ah, taas oo ka dhigtay inay u soo hoydaan abaalmarino aad u qurux badan. wuxuu ku guuleystay horyaalka iyo 2 koob markii uu la joogay kooxda Austria ee FC Salzburg sanadkii 2024, halka May 2015 uu dhigay rikoor cusub isagoo dhaliyay 3 gool oo xigay kuwii ugu degdega badnaa ee hal kulan dhacay taariikhda, markii uu 3 gool uu ku dhaliyay 175 daqiiqo mar ay kooxdiisa Southampton ciyaar isaga hor yimaadeen Aston Villa. Sadio Mane waxa uu ka soo bilaabay ciyaarista kubadda cagta ciyaaryahan kubadda ku ciyaara jidadka magaaladii uu ku dhashay ilaa uu gaaray horyaalka Ingiriiska, isaga oo ku tagay diyaarad u kala gooshaysay magaalada Dakar ee caasimadda dalka Senegal ilaa iyo Faransiiska, kadibna Austria ayuu ka degay.